السلام عليكم سودو ولا وقصة آد وحنون بدن قصدان وحا أي كدعدي دالك سعودية لقصو بلا وصندي لوضكن الشنتي أو أها أحمد ويل آد وداير إسلامرك الله نولا قوس كيسا قار أهان هو يديسي آبيهيسا وحين أهايين كوسي آد اسكو فهمسن أو سيدة داد صاحبة وكفتما وشيكيستا ونوذا عبية وقت ولبا أو أي فراق اسو هلان وحي اسكو شيغان wax waliba oo ku soo kordha arrimahooda gaarka ah taasoo familka ka dhigtay mid ay adag tahay in uu tafaraaruq iyo isfaham uu soo kala dhex galo maalin maalmaha ka mid ah ayaa sida caadadu u ahayd Axmed iyo reerkiisa oo wada caweynaya uu Axmed aabihiisa u sheegay wiilkiisa in hadiiba ay dhacdo inuu guursado in uusan umarnaba u dhawaanin gabar familka ah dhankiisa ama dhanka hooyadiisa oo uu taa beddelkeeda guursado gabar ka fog familka midday doonto ha noqotee si ay noloshiisa u noqoto mid uu si sahlan u hogaamin karo halka hooyadiina ay qabtay fikrad taa ka duwan oo ah in uu guursado gabar u dhow oo aan ka fogeyn reerka gaar ahaanna reerka ay iyada ka dhalatay si uusan wax caqabad ah nolosha ugala kulmin isla markaana uu farxad ku noolaan karo waayihiisa nololeed maadaama ay gabadhu isxigaan arrintaas soo noqotay mid markii ugu horeysay ay familka u kala qaybsamaan balse waxa ay ku ekeed fikrad oo qof waliba dareenkiisa ku cabiraya mana ahayd mid reerka burbur iyo kala tag u horseeda haddaan in yar dhan ugu baxno qisada horta guurku waa nasiib shisheeye ama sukeeye wuxuu doonaba ha noqdee laakiin badanaaba dadka mid waliba fikrad gaar ah ayuu aaminsan yahay sidaa awgeed adiga dhegaystay adoo fikirkaaga ku cabiraya midkee ayaad is leedahay wuu wanaagsan yahay guurka sukeeyaha mise midka shisheeyaha aan ka gudubno Axmed wuxuu ahaa mid aad u da'yar isla markaana aanan diyaar u ahayn guur balse wuxuu garan waayay hooyadii iyo aabihiisa midkii uu talada ka qaadan lahaa maadaama ay waalidkiisa ku kala duwan yihiin xagga fikradda balse wuxuu ra'yigiisa noqday inuu nasiibka ka war sugi doono wuxuu calafka keenana uu ku qanci doono halkii uu si gaar ah labadooda mid ula safan lahaa taasoo uu arkay jawaab dhexdhexaad ah oo waalidkiisa waa ay ku qanceen laakiin mar waliba waxay isweydiintu dhanka labada waalid ahayd talo yuu wiilku la imaan doonaa ma sukeeye mise shisheeye Axmed iyo reerkiisii halkii ayay ka ambaqaadeen noloshoodii qurxooneed muddo kadib ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah Axmed iyo wiilal ay qaraabo ahaayeen oo asxaabtiisa ka mid ah ayaa waxay aadeen xaflad aroos oo ay dhiganayeen reero ka tirsan isla qaraabada waxaa ku sugnaa goobta Khadra oo ahayd qaraabo dhanka hooyada la ahayd Axmed balse wax aqoon ah oo ka badan indhaha isuma lahayn iyada iyo Axmed maadaama ay dhowaan ku soo biirtay familka Axmed wiilashii asxaabtiisa ahaa ayaa u sheegay in gabadhu ay tahay mid aan loo dhawaan karin isla markaana ay dhammaantood isugu dayeen siyaabo kala duwan si ay xiriir ula yeeshaan laakiin ay dhammaantooda ku guuldareysteen Axmed wax dareen ah uma uusan qabin Khadra balse waxa ay naftiisa u sheegtay in uu bal ka warkeeno gabadhan la sheegay in ay adag tahay xitaa in lala hadlo ileen waa iska dhalinyaro oo wuxuu islahaa bal awooddaada tus wiilashan iyo inaad kaga xariifsan tahay xagga dumarka laakiin haddii uu ogaan lahaa waxa ay noqon doonto dhammaadka tallaabadan uu qaadi rabo go'aan midkan ka duwan ayuu dhab ahaan qaadan lahaa laakiin cidna ma ogaan karta wax soo socda ee dhici raba alla mooyaane Axmedna wuxuu go'aansaday inuu ka howlgalo sidii uu Khadra ku soo xirigelin lahaa intaa kadib asagoon wax waqti ah iska lumin ayuu go'aansaday inuu si toos ah ugu waco taleefanka guriga si uu hooshaba u soo afjaro isla markiiba waa uu wacay waxaana ka qabatay Khadra walaasheed Sucaad oo ay si fiican Axmed isku garanayeen saaxiibtinimo caadi ahna marka xigaalnimo laga soo tago ay ka dhaxaysay
waxa uuna salaan kadib ka codsaday in ay qadra ugu dhiibto talka waxa ayna weydiisay waxa uu ka doonayo wuxuuna u sheegay in uu keliya doonayo inuu salaamo sucaad shaki aad u weyn ayaa ku beermay maadaama ay ogeyd in qadra ay dhowaan uun qoyska ku soo biirtay fursad axmed ay isku baran karaanna ay aad u yar tahay iyadoo sidii ula yaaban ayayna talkii ugu dhiibtay qadra sameecaddana ayayna furtay si ay ula socoto waxa ay ka sheekaysanayaan oo ay aad u xiisaynayso inay ogaato qadra oo dhankeeda la yaaban waxa uu ka doonayo axmed maadaama aysan weligoodba isla hadlin oo ay keliya aragti aan uun isku garanayaan halkii ayuuna axmed salaan iyo isxaalwaraysi kadib ugu sheegay inuu si dhab ah u jecel yahay islamarkaana uu si degdeg ah jawaab ugu doonayo qadra oo la yaaban weerarka tooska ah ee axmed dhankiis kaga yimid si la mid ah garan la wixii ay ku jawaabi lahayd ayaa inta aysan jawaabin sucaad oo la socotay xaaladda si awood leh talka ugu qaaday qadra islamarkaana si caro leh dhulka ugu dhufatay talow sucaad ma jeceyl axmed ay u qabtay may ficilkaas u samaysay qadarana maxay ku jawaabi doontaa la soco qaybta labaad